Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa Baco Media. Waxaan doonayaa halkan aan dhowr qodob kaga hadlo. Qodob koowaad waxa weeye hambaleynayo doorashooyinka wanaagsanaa ee u dhacay Jamhuuriyadda Qaranka Somalilan, iyadoo waxaan leeyahay hambaliyo. Qodobka labaad aan ka hadlayaa waxa weeye muhiimaddan kilibkan u qaatay lixle iyo buuggii laga qoray. lixle ninkaa buugga ka qoray waxaan leeyahay jasaakumullah khayr, ilaahay ha kaa jasaaysiiyo, wax wanaagsan baad qabatay, taariikh wanaagsan waad qortay. qodobka saddexaad ee ugu muhiimsan aan kilibkan u qabsaday waxa weeye taariikhda lixle oo siyaalo kala duwan looga kala sheekeynayo, siyaasiyiintu ay ka hadlayso ayaan meelahan warbaahinta ka arkay oo la leeyahay lixle taariikhdaas waysan kusoo biiray iyo taariikhdaas waysan kusoo biiray. horta haddaan idiin waramo lixle SNM hadday cidi sheeganayso lixlaa SNM ahaa. SNM oo aan jirin ayuu halganka bilaabay lixle wuxuu ahaa ninkii maxamed cali iyo raggii la midka ahaa raaga bidaar iyo dibadda u saaray buu ahaa ee afraad iyagoo ah aan SNM ba jirin halkaa xiriirka iyo dagaalka ay kaga wadi jireen. ujeedadiisuna waxay ahayd in gudaha waddanka maca afraad ay soo gasho dagaalka Hargeysa dhexdeeda laga dhex istaara, laakiin may suuroobin. lixle wuxuu ahaa SNM oo adduunyada aan laga aqoon oo aan laga maqlin oo lagu dhawaaqay uun, laakiin aan ciidan haysan, meel kalena u dhaqaaqin. ninkii operatinkii badbaado ee cajaa'ibka ahaa suurageliyey buu ahaa. ciidan wuxuu haystay 50 inan ee shareero oo maanta rag intaan ka garanayo farakutirisi ay ka nool yihiin, oo uu ka mid yahay muuse nuur faandhe, oo uu ka mid yahay boodhle, oo uu ka mid yahay doolaal. raggii caynka ahaa ayuu gaashaamayntuu yimi, 2 goor buu gaashaamiyey lixle. marba ciidanka tiraduu u baahan yahay, qoryuhuu u baahan yahay. bayska gaashaame waxaa joogay oo haystay oo isaga kala sarreeyey maxamed kaahin axmed oo maanta nool oo madaxda waddanka ka mid ah. ku-xigeenkiisa wuxuu ahaa ninkii la odhan jiray calahayaan, ilaahay qabriga u nuure, oo ahaa baanduulihiisii. waxaa joogay niman siyaasiyiina oo kale oo magac iyo maamuus ku lahaa waddanka, oo ka mid ahaa cali togdheer, oo ka mid ahaa cabdiraxmaan balaaki, oo ka mid ahaa caaqilkii guud ee beesha habaryoonis maxamed daahir cabdiqudax. waxaanay ahayn dadkii suurageliyey in dhaqdhaqaaqyadii nooca ahaa ay suuroobaan oo hirgalaan. lixle wuxuu ahaa ninka waxaasu dadaan soo sheegayey isku abaabulay ee isku kiciyey. mucjisooyinku lahaa waxaa ka mid a ka burco joogay, ka ceerigaabo joogay, ka hargeysa joogay, ka gabiili joogay. intaba xiriir buu la lahaa, wel organize baanay ahaan. waxyaalaha aan la ilaaweyn waxaa ka mid ah markii ciidanku uu meesha yimi bartuu waxaa ciidanka garwadeen u ahaa cabdixakiin sumuli iyo cabdiraxmaan maxamed case iyo doolaal iyo niman fara badan ba ayay ahaan ciidanku aanan halkan kusoo dhammayn karin. meel buu kula ballamay lixloo, halkiibuu lixloo taagan ugu tegay. marka kilibka waxaa iga keenay waa lixle SNM kuma soo biirine SNM baa lixle kusoo biirtay. lixle ninka doonayoona waxaad wareysataa duuliyo sare maxamuud maxamed xayd iyo cabdisalaam turki oo jooga Hargeysa. iminkana aan ku rajo weynay kulley inuu buuggan intii laga gaadhsiin karayey wax uu ka qoray ama wax uu ka sheegay. waxaan leeyahay taariikhda lixle in la xuso aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya, waanay wanaagsan tahay. laakiin nimankaas siyaasiyiin tahay wax badan bay khaldayaan. waxaan leeyahay taariikhda lixle siyaasi waa ka sheekeyn. nimankaa raggii kasoo nool saraakiisha ahaa ee uu turkile ka mid yahay, ee inuu maxamed maxamuud xayd ka mid yahay, ee uu axmed mire ka mid yahay, raggaa hoosta isoo ogaayeen ka waramaan oo ka sheekeeyaan. inta ka sheekaysana aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. waxsaarnamo lahooda waxaynu ku jiraa waa 40 sannadood ba ka dambeeyey. dadkii waa la wada waaweynaaday, waxbaa la ilaawayaa. nin kastoo isiro ka sheekeeba wax wanaagsan buu sameeyey. aad iyo aad baan ugu mahadsan yahay. laakiin taariikhdoo sideedii dee raggii baa noolay. inta mar kale laysu mobilays gareeyo la ururiyo tan waxay ahayd golokafoole laysku hagaajiyo sideedii loo soo daayay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.